fadhinay nin dhakhtaran waayo qadaraan wada joogna wuxuu yidhi annaga cimaaradda aan degannahay cimaaradda ama bildinka aan degannahay ninka iska leh wuxuu leeyahay buu yidhi ilaa 9 ama 10 cimaaradood yani bishii mushaharka soo gala milyan riyaal yani ilaa $370,000 ku qiyaas ayaa soo gashay yidhi bishii mushahar ahaan yani oo helaa buu yidhi laakiin labada keli baa ka fariistay marka usbuucii 2 goor ayaa laga soo maydhaa ayuu yidhi mid dhalinyaro oo iga soo horjeeda oo mushaharkiisu iska yar yahay ayaa wuxuu yidhi aan maalin dhawad aan la hadlay waxaan idhi buu yidhi ka warran ninkaas maalqabeenka lacagtaa soo gasha milyanka riyaal bishii soo gasha kelida laga maydho usbuucii 2 goor maalkiisa iyo wixiisa qaado adigana caafimaadkaaga si ma yeeli lahayd mayuu yidhi ma yeeleen waana faqiir buu yidhi waxba ma haysto ma cindahu shay marka 2 goor baa usbuucii laga soo maydhaya adiga kelidaadana wuxuu yidhi maalintii waaban iloobay laakiin maalintii wuxuu yidhi ugu yaraan 36 goor ayay shaqadii ninkaas meesha loogu qaban lahaa fii kulli yowm 36 marra ayay meydhitaankaas ay gelaysaa buu yidhi kelidaas waxaa wasakdaa iyo cuntada aad cunayso ay kala sifaynaysaa oo manaaficdii jirka u diraysaa wixii wasakhana iyagoo bowl iyo kaadi oo qurun ah ay kaa saaraysaa kam dafacat meeqaa baxaysay marka walaalayaal allahu rabbulcaalamiin haddaadan meel kaleba tegin naftaada markaa dib isugu noqoto miyaadan jeclaanayn ma jeclaanaysaa ilahay mise ma jeclaanaysid tuxibuhu aw laa tuxibuhu axibuuh huwa alxabiibu alawal wuxuu ku siiyey waxaan cid kale aysan ku siinin lagu siin karinna aadan ogolayna hal il keen hal il iga iibi ama hal dheg ama hal sabci oo dhulka muggiisoo dahaba qaadan yeeli maysid faman acطaaka hada rabb alcaalamiin وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار